Sarmat waa gantaal culus oo hawshiisu ay socotay dhowrkii sano ee u dambeeyay wuxuuna ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nuclear-ka ee sida fudud isaga kala gudbi kara qaaradaha dunida sida muuqata qorshahan Moscow in dhaweydba juhdi dadaal iyo tamar xooganba way isugu geysay kamira dhalinta soo saarka iyo inuu dibadda u soo baxo tijaabadiisuna ay hirgasho gantaalka kan sida muuqata hanaankan cusub ee Sarmat wuxuu bedelayaa gantaalka lagu magacaabo Fiyafoda kaas oo ay reer galbeedka u bixiyeen magaca shaydaanka isla markaana udub dhexaad u ah gantaalada xambaara hubka nuclear-ka ee uu dalka Ruushku samaystay tijaabada gantaalkan ayaa loo malaynayaa in uu aad u sii kala fogeyn doono wadamada reer galbeedka iyo Ruushka maadaama ay u arkaan Ruushka mid khatar ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka Kremlinka waxa uu dabcan wacad ku maray inay ku dadaali doonaan horumarinta hubkooda nuclear-ka gantaalkan oo ah mid aad u halis badan ayaa dabcan magaciisa waxa uu yahay Sarmat waxay tijaabadiisa ku soo beegantay iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhaxaysa wadamada reer galbeedka iyo Ruushka ee ku saabsan duulaanka Ruushka ee uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine gantaalkan ayaa ah mid tayadiisu ay aad u sarreyso isagoo isaga kala gooshi kara qaaradaha dunida madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu gantaalkan sababi doono in wadamada reer galbeedka ay si aad ah uga fikiraan ka hor inta aysan qaadin tallaabooyin gardarra oo ka dhan ah dalkiisa Putin waxa uu qirsan yahay in waaxda difaaca dalkiisa tayayn iyo tamar badan uu geliyay walina ay cagta saareen dhabaha muujinaya isku filnaanshiyaha hanaanka difaaca ee dhulka iyo sidoo kale badduba madaxweyne Vladimir Putin waxa uu aaminsan yahay cadaadiska uga imaanaya Mareykanka iyo xulafadiisa inaysan marnaba dalkiisa ka joojin doonin gaaritaanka bartilmaameedka u cad ee ah hiigsiga Ruushka oo hela hanaan difaac oo sare iyo sidoo kale in uu dunida u tuso in dalkiisa aanu ahayn dal khatar ku ah dunida balse diyaar u ah cadow kasta oo soo haweysta Ruushka inuu cagta marin doono maamulka Putin waxa uu cambaarayn iyo cadaadis nuuc kasta oo ay tahay kala kulmay dunida markii uu go'aansaday duulaan weerarkii uu ku ekeeyay dalka ay dariska yihiin ee Ukraine bishii February 24keeda Putin oo wali la oran karo danihiisa istiraatiijiga ee duulaan weerarka ma gaarin haddana waxa uu ku dhaga adeegayaa gaaritaanka barta ugu dambeysay ah inuu gacanta ku dhigo maamulka magaalada Kiev dawladdan uu afgambiyo meeshan uu ka saaro nidaamka u janjeera reer galbeedka sidoo kale waxa uu doonayaa inuu dalkaasi ka hirgeliyo nidaam Moscow ay u aragto mid ay isla jaan qaadi karaan xalna u noqonaysa in meesha laga saaro faragelinta dunida ka imaanaysa ee dhinaca Ukraine looga soo galayo danaha dalka Ruushka